hagaag Disney soo noqod wanaagsan kulan adagaa jiray maanta Tottenham aan idhaahdo Manchester City markaa laga adkaado wadadii guuldarooyinka 9 gool daro 12 gool saamana laakiin Aston Villa aad u ciyaartay si fiican Man City si kasta looga fiicnaa qaybta dambe maxaa City maxaa ka qaldan kulankan runtii City waxaa yaalaha ugu waaweyn oo ka qaldan waxaan la soconay kubad haysashadooda iyo kubad abuuridooda aad inay u badneed kooxaana inta badan waxay qalqal ku geli jirtay geesay ka jibi jirtay kubadana way ka heli jirtay kubadana way ku abuuri jirtay oo cabsi goolka oo weerarka tiina maysan jirin Villana waxaan la soconnaa Amre ninkan si fiican u yaqaanaa markay kubadda Villa qalado gadaal ay u soo cararaysa oo xarqintooda 18 korkiisa imaanayeen kadibna waa celin ayay ku sameynayaan waxba la soconaaba markay maraysay 15 second in Duran oo fursad hela kaligiisa oo la galo taas laakiin qaladka waxaa iska lahay ciyaaryahan Gabriel oo siiyay kubadda kadibna si uu socotay Villa qaabkaas u ciyaaraysay City-na qaybta hore waxaan qabaa kubad isku dhiibidooda inay fiicneed qaasatan Grealish kubadaha ma dhuminayn oo kubadaha markii Grealish la sii inta badan ma dhumin laakiin wax oo weyn uu ku sameeyay ma jirto ciyaartooy oo kubad u dhigana ma jirto asigana laba mar oo goolka toogta meel aan waxba ka imaan karin oo ku darbeeyay naftigiisa kubad celinta sida uu xarakeynayo way fiicnayd laakiin xarakadaas wax ka dambeeyay maysan jirin dhinaca kale oo Silva saarnayna wax ka socdaba ma jirin marka Villa cabsi oo lagu hayay maysan jirin taasna waxay ka faa'iideysatay ciyaaryahanka Tielemans oo numberka 10aad ahaan u dheelay dhexdoodana Villa aad u fiicnayd markaa fiiriso Kamara Tielemans iyo Onana iyo ciyaaryahankan kale Kamara raacitaankooda fiicnaay ninkan aqligiisa fiicnaay Rojana waxaan la soconaa inuu dhinac ka dheelay laakiin Roj wuxuu ku fiican yahay dhexda kubadaha markii si uu jiidaa kubad aad u fiican Roj looga dhex bixiyay asigana si xaraka loo qaatay banaanka ayuu Duran u dhigay asna si xaraka ayuu u dhaliyay Villana niideedii ayaa dib u soo noqotay iyo qaab ciyaareedkeedii Villana waxaan qabaa inay u qalantay guusha maanta ay gaartay Villa waa sidaa sheegtay Disney City wax badan ka qaldanaa wax cusub hadda aan ku aragnay male kulamada u dambeeyay markii la fiiriyay sidii qaladaad u sameynayaan Guardiola daqiiqadii koowaad inuu qaladkaas sameeyay in Highlandkaas ay ogolaadaan kubadaas uu ka dhex bixiyay Tielemans ma aqaan Stones iyo Akanji iyo orodkii badnaa male qaab sabab Highland u dhilaan ma aqaan Guardiola ugu adkeysanay wax u bedelay male kubadii ma raacanayaan ma bursanayaan 90 daqiiqo energy ma laha baasaska way qaldayaan Haaland fursad ma la siinayo marka waxaan is leeyahay waa uun sheekadii hore leh City hadda waxaan moodaa in iska noqotay wax caadiyaba in laga badiyo laakiin waxaan amaanaynaa Emery amaanaynaa qaabka uu ciyaar kooxdiisa difaaciisa u soo bilaabayeen kubadda dhexdiisa u fiicnaayeen nimanka garbaha Maguire iyo Rodgers asalkooda dhaxaayeen garba ciyaarayeen waa kin soo fariisay Duran ku soo bilaabo kuma khasaarin laba weeraryahan oo fiican u haystaa marka waxaan isleeyahay amaanta badan ani waxaan siinayaa Emery Aston Villa laakiin Pep Guardiola si kasta u wareersan yahay wax kasta uu sameeyay uma suurtagelin inuu hagaajinayo hadda ima muuqdo waxaan isleeyahay top 4 kood xataa qalqiil ku jira Disney Guardiola calaamad badan saaran wax badan uu luminaya ma aqaan January inuu soo galo best players soo garto mana la helayo January best players hal labo heli kara laakiin maxaa isleedahay Guardiola tababarnimadiisa haba shakil galinaya hadii wax cusub ma sameynayo sababta sidii loo ciyaarayo laba nin garbaha saar marka dhaxal sidoo difaacina Bastaman rabaan waxaan waa socon la yihiin في فكتر كيلوميان كوحي مكبقايان كوح كست شبيه سوليدا ولا مامولاي هيك لا مامولاي قبل دم عيارت كورتيولا هاد متى هي مركان عدادس رun ah masaaraya ma runtii cadaadis waa saaraya oo nin laga badiyay ciyaar badan runtii cadaadis u dhiman ma jiraba kooxdana niy ahaan waxa u malaysaaba niy ahaan inay baabacsan tahay sababtoo kooxdan waa koox laga cabsi jiray oo standardkooda ama heerkooda aad u sareeyay koox walbana garaac jirtay heerkooda soo dhacay baahidooda soo dhacday kubad abuuridooda soo dhacday gool dhalintooda soo dhacday wax walba hoos u dhacday mana qaba aniga arintan hal ciyaartoy kaliya in lagu aaday karo ay dhamaantood ay tahay oo goolka koowaad sida uga dhashay kubadoo laga dhex bixiyo tii dambe Roger inuu dhexda intuu ka qaato asiga jiida dhiibto asiga la sii xarqin 18 Walker hortaagan oo ka dhaliyo waxaas wax la arki jiray ma aha oo difaacoodii aad u dhexdoodii Kovacic waxaba lagu soo reebaba Roger uu iska soo ridaba dadku dhexda ku soo reebay ku jirta marka Kovacic iyo Gundogan raacitaankii badnaay ma jiro City-na hadaa la socotid qaabka waag hore ay dadku dili jirto waxay aad laba ciyaartoy markii geesaha dhigto waxaan arkaynaa Grealish iyo Silva inaysan lay ka soo dhaqaaqeen
laakiin waxaa ku dhawaa jiray laba cayaartooy oo dhexda ka dheelaa ku kala dhawaa jireen rutrin oo ka dambey jiray labadaas marka isku dhow laba iyo labada saddex iyo saddexa kala celi jira waa lix afarta soo hartay afka hore ilaali jireen labada central defenderska iyo labadan kaloo dhexda ka dhesha kooxdii o dhan macnaha gadaalay gashay marka labadaas iskor saaran waxbay soo mari jireen xarqan 18 kan haduu mari waaye kan kala soo geli jiray hadda wixii ma jirto difaacoodana wuxuu haysan jiray nasasho weyn wax kubadii soo dhacday City iska lahaa jirta hadda marka maanta duuk aan dhahay ciyaaryahankan Grealish wax la jooga ma jirin Gundogan lama joogin oo meeshaas waxba kala sameeyeen ciyaaryahankan kale Kovacic ma joogin hal mar weyn hal darbo gamo laciif oo dhinaca kale fiil foodinaba la saarnay xogaa meeshaas waxa u malaysaa wax yar fiil foodin inuu isku dadayay inuu wax sameeyo oo darbooyin saddex darbo ku gamay laakiin markii u dambeysay fursado hel oo ka dhashto laftigiisa sanadkan oo dhan hal gool ki koowaad inuu ka dhaliyo sanadkii horena 19 gool ayuu dhaliyay dib u dhac weyn ku jira marka waa in la helo ciyaartooy dhexda ka dheelo oo kubada u kala maamulo iyo labada ciyaartooy oo ku kala dhawaa jirta labadan taas marka waxay keeni jirtay in kooxyo dhan ay cabsadaan ay gadaal u galaan iyo saacad daqiiqada ka dambayso kubada ay sii jireen oo waxay sameey jireen cabsi ku haa jireen cabsida ma jirto kubad abuurid ma jirto formarinta ma jirto taas hadda dhibaato ka taagan ana waxaan is leeyahay waa fila sababta markaan fiiriyo qamiista waxay la ciyaari doonaan Everton Leicester la ciyaari doonaan waa laba koox ay ka badi karaan Ipswich hadan la ciyaaraan marka waa saddex koox markii laga reebo FA Cup-ka Salford koox la dhaay aad u yar gurigood ugu imaanay West Ham la ciyaaraysa ande marka waa West Ham iyo Everton iyo Leicester la ciyaar waa 9 dhibic 9kaas dhibic doo kansado 36 u imaan doonaan waa meesha hadda Liverpool ay taagan tahay ayuu imaan doonaan shaash marka ay ka taagan tahay Liverpool ma dhici kartaa saddex ciyaar isku xigto Liverpool in laga adkaado Arsenal laga soo adsiiba Liverpool saddex ciyaar isku xigto ma dhici kartaa in laga adkaado ciyaarta bir uu soo horeyso ay la ciyaari doonto ma u maleynaa ma horyaal ma jiray top 4 ma top 4 waa dhici kartaa haddii ciyaaryahan Rodri u dhawo kale oo numberka lixaad ciyaaryahan oo Brazilian Edison la leeyahay oo Atlanta jooga ayuu rabaa laakiin ana waxaan is leeyahay waxa ugu muhiimsan hadduu Gimares Bruno Gimareska Newcastle jooga hadduu keeno uma baahna ninkaas in la tababaro ama Premier League ka dheela Premier League fahamsan yahay waana number lixaad number 8 labadaba waa qaban karaa haddii Rodri oo yimaadana number 8 ahaan u dheeli karaa gool dhalintiisa fiican waa ciyaaryahanada la dhaho box to box ko gala waxaan is leeyahay Gimares laakiin suuq ku keeni lahaa iyo lacagti suuq la u baahan yahay marka ya kuwan wax ma ku sameyn karo kuwan waxba ma ku sameyn kariyo sababtoo qaladaadka waxaan qabaa inuu qayb ka yahay sababtoo markii uu keenayay Gundogan oo dib u soo celinay wuxuu u baahnay ciyaaryahan oo Rodri oo kala ayuu u baahnay oo dhexda ka dheela numberka 8 numberka 6 isku qabto Rodri waa la soconaa dhexda dhan waxa kamay jiray kubadda xataa isku soo saari waayeen kubad markay isku soo saari waayeen ninka soo bixi jiray asoo ah maanta kubadii loo gamayay Grealish ee guest la geenay Stone soo gamay markuu Stone baxay waa la waayay ninkii oo dhan meel ka baxay la waayay waxa keenaysa laakiin Rodri jooga lama weylay dhinaco uu kala bedeli jiray kubad yaa bedelay hadda marka Bernardo Silva kubadaas dheer ma sameey karin City xaaladda ku xuntayn arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha